ninka lagu imtixaamay haweeney xun iyo haweeneyda ninka xun lagu imtixaamay horta sabirka oo salatriis waa fiican yahay dulqaadka ilaahay baa dhinac kale fursad kaaga sahlaya qisadan qodobkaasi ninka haweeneyda xun ilaahay ku imtixaamay ayay noo tilmaamaysaa hadda ka horan qisada waxaan ka akhriyay kitaabul kabaa'ir imaamkii la oran jiray dahabi iska lahaa waxay leedahay qisadu nin dadka wanaagsan ka mid ah ayaa wuxuu lahaa ninay saaxiib ahaayeen ninkaa waxay saaxiib ku ahaayeen ilaahay dartiis yacni wanaag bay isku barteen isku qabiil maaha isku deegaan ma ahan rubama laga yaabaa inay kala fog yihiin bay ahaan laakiin iimaankaa kulmiyo walaala ku noqdeen marka ninkan saaxiibkii sanad walbuu soo siyaaran jiray soo booqan jiray xaaladda saaxiibka uu ku sugan yahay maalin maalmaha ka mida booqashadiisa sanawiga asagoo wada ayuu gurigii imaaday albaabkii uu soo garaacay islaam baa waxay tidhi intay guriga dhexdiisa ka qaylisay yaa weeye qofkii albaabka garaacaya markaasuu wuxuu yidhi ninkaada walaalkiis weeye oo ilaahay dartiis walaal ay ku yihiin inaan soo boqdo walaalkay ayaana u imid ayuu yidhi waxay tidhi haye waa yahay wuu maqan yahay asagii weliba hadal adag bay kula hadashay waxay tidhi wuu maqan yahay qoryuu noo doonay ama yani hadda casrigan magaalooyinka waaweyn gaas iyo waxa dabka loogu shirto ayuu raadiyay ilaahay ma soo celiyo ayay tiri ninkeedii abaaraysaa ugu maqan danteeda allahu mustacaan way iska jiraan dad saas ilaahay ma soo nabad celiyo ilaahay kuma soo celiyo guriga ilaahay sidaa ha ku sameeyo ilaahay habaarbaba ninkeeda ugu dhaqaaqday ninkii waa yaabay wuxuu yidhi maxay ahayd midaan ilaahay hoos ka yiri isagoo meeshii taagan ayaaba ninkii imaaday buur halkaasoo kale ayuu ka soo baxay ilaahay qudradiisa ninkani qoryihii waxa u wada libaax geedkii libaaxa taqaanaan bahalka ah ayaa qoryihii dusha u saaran yihiin libaaxiina wuu hor socdaa ninkii ilaahay baa u duleeyey kadibna gurigii wuu soo gaaray ninkii saaxiibka meesha taagan buu arkay waa ismucaanaqayeen waa isa salaameen wuu soo dhaweeyey kadibna libaaxiiba qoryihii kala degay ninkii wuxuu libaaxi ku yidhi libaaxu iska tag ilaahay ku barakeeye ilaahay baa u duleeyey gurigii bay soo wada galeen haweeneydii xaaladii ku sugan afxumada iyo cayda oo ninkeeda ay habaarayso xataa ninkan ka xishoon mayso waxeeda gooni ka dhigan maysa xataa ninkii hortiisii ayay ninkeeda ku caayaysaa ku dhibaataynaysaa cabaar markuu ninkii la joogay waa iska tegay isagoo ka yaaban saaxiibkiis sabirka uu naagtan dhibta badan siduu ugu sabraya isagoo ka yaaban wuu iska tegay sanadkii labaad markii la gaaray wuu imaaday isagoo soo siyaaranaya albaabkii wuu soo gargaraacay haweeney baa hadasho waxay tiri yaa albaabka taagan ninkii baa yidhi waa ninkaada ama ninka meeshaan qoyskan iskale walaalkiis oo ilaahay dartii ay walaal ku yihiin islaantii waxay tiri soo dhawo walaal soo dhawo hadal wanaagsan bay kula hadashay soo fariiso insha allahu tacaala wuu imaanayaa wuu soo socdaa ilaahay khayr ha kusoo nabad celiyo ilaahay guriga ha kusoo yacni hadal wanaagsan oo sanadkii hore khilaafsan ayay haweeneydu ku hadashay ninka waa la yaaba hadalkeeda dabacsan ee naxariista leh iyo adaabteeda ayuu la yaabay isagoo meeshii jooga ninkii baa imaadayba isagoo qoryo wada qoryaha markaa libaax uma waday asagaa dusha ku sita ninkii waa sii yaabay masana asagaa qoryihii watay libaaxii sanadkii hore u waday maba la socdaba wuu salaamay gurigii uu galay haweeneydii cuntay u keentay hadal wanaagsan iyadoo ku hadlaysa markuu damcay inuu ninkii noqdo iska laabto ilaa booqashadiisi waa dhamaystee ayuu wuxuu yidhi niyo walaalo waxaan ku weydiinayaa arrin ee balyara halkayna kaambiir soo baxa wuxuu yidhi maxaad i weydiinaysaa wuxuu yidhi sanadkii hore buu yidhi waan kuu imaaday waxaan arkay buu yidhi haweeneyda aad qabtay say u xumayd oo af xumayd oo u adab darayd markaasna waxaan ku arkay adoo libaax qorya ku sita oo ilaahay libaaxii kuu duleeyey oo hortaada u soconayo sanadkaana waa kuu imaaday haweeney wanaagsan oo edab leh inay guriga kuu joogtaan arkay libaaxii sanadkii hore kula socday hadda kulama socda adaa qoryaha waxaad ku wadataa tunkaada ama maaragtay haddii alla kuurayahay luquntaad ku wadataa xaaladda bal ii fasir buu yidhi xaaladdan waa ka cajabay wuxuu yidhi walaalkayow islaantii xumayd ee sanadkii hore igu imaatay way dhibatay buu yidhi ilaahay baa oofsaday ilaahay baa i dhaafiyey buu yidhi waxaan ahaa buu yidhi mid u dulqaad badnaa waa iskaga dulqaadanayay buu lilah ilaahay tiisii baana ku timid way dhimatay ilaahay baa wuxuu igu bedelay sabarkayga daraadiis mid ka khayr badan oo wanaagsan oo middaa sanadkan aragtay marka gabdhuhu isku mid maahana tii hore mid xun baahay middaana ilaahay igu bedelay tiina aakhiray aad tii hore dhibaatan kula noolaa buu yidhi waxaad aragtay dee adigaaba indhahaada ku arkayay laakiin bedel kaloo wanaagsan baa ilaahay siiyo libaax
oo xayawaanada kii ugu xooga badnaa ugu dilaasanaa ugu geysaysanaa ayaa ilaahay ii sakhiray oo ii duleeyey buu qoryuhu ila soo qaadi jiray buu taasaa ilaahay igu bedelay dhinacii haweeneydii xumaynaysa ayaa xagga ilaahay iga kabay buu yidhi maadaama tii uu xumayn dhibatay buu yidhi mid wanaagsan ilaahay igu bedelay dee markaa noloshu iskaamilaysaa buu yidhi markii libaax inaa lii adeejiyo markaa uma baahnay buu yidhi fursadii waa dhamaatay buu libaaxi waa iska tegay buu yidhi waa lay fasaxay buu ma'muur min allahi buu ahaa moogta ilaahay xaggiisu ka amranaa macnaheedu waa maxay sabirka laftigiisa haddaad muujisid ilaahay xaggiisa ayaad ka helaysaa bedel khayr badan insha allah lidaalika aan la quusan waad araysaa nabiyullaahi nuux rususha ilaahay ugu horreeyay 950 sano subxaan allah 900 bal u fiirsa muddada intaa leh 950 sano ayuu qoomkiisa wuxuu ku hayay ucbudullah maa lakum min ilaahin hayru ilaahay caabuda rabbi cibaada idinku le waa rabbiga xaqa ahayn ma jireen dadkii يعني هدي أنا كوريا سجال كاب بقولي كنتم كان سنة راعي رمي نبي الله نوح ماشي اللي جوب بدي سيدتني دور قف بالير والله في سنة سيدتني دور قف ومع ذلك هو صبر والصبر 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 يعني صبر كان بيدي الله يسوش الله صالحين توقواس ونكا كان بيدي إلهي بقى بدلي أوين إذا صالح حدا ما كنت بيد هذا الراحية وناك أيام كنا والله اللي باحين ويقع ويقتري أنا ما رأيت قرية هيدا دبرك كوسوقاته ويا هويني وناكسن أو دقة فضود ويا قيع إنسان هيستاوير خدمة أنت إلهي وحنا ودي سنينا الصبر يقولوا له نوافج وحنا شعلي هاي خلينا كيا هاي إلهي ومديك بدن وكريمة السلام عليكم.